السلام عليكم walaalayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan maanta waxaan kula wadaagi doonaa qaar kamid ah toolska iyo software-ada laga maarmaanka ah tahay inay adeegsadaan web designerska iyo platformyada laga heli karo resource-ka wax lagu design gareeyo marka muuqaalkan qaybihiisa hore waxaan la wadaagi doonaa platformska aad ka heli kartaan resource-ka wax ku design garanaysaan muuqaalka qaybihiisa dambana waxaan la wadaagi doonaa software-ada ay badanaa adeegsadaan designerada Okay, platformka ugu horeeya in la wadaagi doono waxa weeye Andrew waa mid kamid ah platformska laga helo SVG characterska noocana badanaa designeradu adeegsadaan gaar ahaan web designersku oo maxay website-kooda ama design-kooda ay ku qurxiyaan ayaad ka heli kartaa marka characterka aad doonayso aad ku qoraysaa sirjita tusaale ahaan marka aad doonayso character la xiriira e-commerce oo kale tusaale ahaan e-commerce ama waxa aad doonayso magacooda aad ku qoraysaa kadibna characterka aad doonayso marka aad hesho qaybtan ayaad colorka ka bedeli kartaa code-kan hoose hexadecimalka ayaad colorkana ku bedeli laga yaabo marka colorka inaanu aad maxay isku bedelin laakiin xoog colorka aad doonayso uu soo yara dhawaado marka aad dhamayso marka characterka aad doonayso iyo colorkii wax walba aad u baahnayd waxaad ula degi kartaa laba hab oo kala ah PNG ama SVG marka aad doonayso marka inaad website ku darto design-kaaga aduu yahay website waxa ku wanaagsan inaad SVG ga la degto Okay, platformka xiga ee la wadaagi doono waxa weeye svgwave.in svgwave marka waxaad ka helaysaa shaybabka noocan oo kala ah waveska ah ayaad ka heli kartaa website-ka marka isticmaalkiisa aad ay u fududeeysna oo qaybtan midigta ayaad ka bedbedelaysaa waveska qaabka uu ekaanayo ayaad ka xididi kartaa tusaale ahaan marka aad doonayso waveska tiradooda inaad bedesho qaybtan ayaad ka bedelaysaa layerada marka aad doonayso inaad bedesho qaybtan ayaad ka bedelaysaa height-ka ama dhererka wavekaada ama shape-kaaga intuu la ekaanayo qaybtan ayaad ka bedeli kartaa qaybahan hoose marka kalarada ayaad ka bedeli kartaa halka qaybahan dhexe aad ka bedeli karto tusaale ahaan marka aad doonayso inuu top ka soo muuqdo qaybtan ayaad taabanaysaa marka aad doonayso inuu ka soo muuqdo xagga hoose qaybtan ayaad ka bedeli kartaa kor iyo hoos animation marka aad doonayso inaad ku dartana qaybtan ayaad kaga dari kartaa marka design-kaada aad dhamayso kadib marka aad doonayso inaad la degtana waxaad kala degi kartaa qaybtan hoose oo PNG ama SVG ka doonto aad kula degi kartaa laakiin haddii tusaale marka animation aad ku darto wax laga yaabaa inaanu PNG ga uu ka diido aad kula degi karin oo SVG oo kaliya aad kula degi karto Okay, platformka inta xigeed la wadaagi doono waxa weeye Font-Awesome waa mid kamid ah platformyada ugu waaweyn aad ka heli karto CSS iconska icon walbo aad doonayso ayaad ka helaysaa dhammaan iconada marka website-kan ku jira dhamaantood waxay ku diyaarsan yihiin CSS isticmaalkoodana aad ayuu u fudud yahay oo waxa loo isticmaali karaa sida Bootstrap oo kale marka haddaad doonto waxaad la degi kartaa CSS fileska ay la degi kartaa ama waxaad isticmaali kartaa CDN link si marka iconska aad u baadho waxaad tagaysaa iconska ayaad tagaysaa kadibna qaybtan ayaad ku qoraysaa oo aad ka raadinaysaa iconska aad doonayso inaad isticmaasho Okay, haddii aan inta kaga baxo platformska aad ka heli karto resource-ka wax ku design garanayso marka resource-kaas oo aad soo urursato ama aad soo hesho inta aadan sameyn real website inta aadan sameyn waxa u baahan tahay inaad sameyso prototype ama qaabka uu u shaqeyn lahaa website-kaada oo sample ah oo real aan ahayn marka prototype-ka inaad fahmaysan ayaan filayaa prototype marka software-da lagu design gareeyo ama lagu sameeyo waxa kamid ah ama ugu waaweyn Adobe XD iyo Figma labadoodaba marka isku shaqo ay qabtaan oo aan prototype lagu sameeyo inaad page aad u design gareyso kadibna page-kaada qaabka isku xirmay inaad isku xidho aad eegto qaabka uu soo muuqanayo design-kaaga marka habkan ama software-dan aad ay u fudud yihiin oo wax kood ah ma isticmaalaysid ma qoraysid wax kood ah kaliya waa drag and drop shapes ayaad maxay ku sameynaysaa design-ka waana sida Photoshop oo kale ayaa loo isticmaalaa taa oo marka waqtiga ku soo koobaysa maadaama wax kood ah aadan qorin Adobe XD iyo Figma marka labadooda waxay u baahan yihiin faahfaahin dheeraad ah iyo in mid walba si gaar ah loo sharaxo mustaqbalka ayaan isku dayi doonaa inaan muuqaallo ka sameeyo dualeera Okay, marka aad prototype marka aad sameyso oo aad aragto qaabka uu soo muuqan lahaa website-kaada waxa laga maarmaanaa inaad u bedesho real ama waxa website shaqeynayo caadi inaad u bedesho koodka HTML-ka iyo CSS ka aad qorto si marka koodka HTML-ka iyo CSS ka aad qorto waxaad u baahan tahay text editor-ka ugu fiican ee aan kugula talin lahaa waxa weeye anu Visual Studio Code ama VS Code waa barnaamij free ah Microsoft ayaa iskale si free ah kula soo degi kartaa installation-kiisana aad ayuu fudud yahay sidoo kale wuxuu leeyahay waxyaabo badan wuxuu leeyahay extension dheeraad ah oo lagu install iyo waxyaabo kale oo badan marka Visual Studio Code waxa laga yaabaa in mustaqbalkan ka sameeyo muuqaal gaar ah oo maxay qaabka loo isticmaalo qaabka extensionada loogu install gareeyo iyo qaab waxyaabo badan ku saabsan Visual Studio Code-ka muuqaalkeena maanta marka walaalayaal intaas ayaan ku soo koobayaa muuqaalkan xigeentan ku kulmayno sida iyo nabadgelyo